dhammaantiin waan salaamayaa waxaan jeclahay anoo ku hadlaya magaca warbajoogta Puntland ee dalka Germany inaan salaan iyo bogaadin ku soo jeediyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee caawa nagala soo qayb gashay xuska aasaaska sanad guuradii 13aad ee aasaaska Puntland aad baa u mahadsantihiin dadka meelaha fogfog ka yimid dadka sida hagar la'aanta ah dadaalka u soo muujiyay iyo kartida marka ugu horeysa Puntland waa maamulka kaliya Soomaaliya ee uu istaagay qarannimadii iyo midnimadii kadib markii qarankeenii burburay waxa la oran karaa waa dib u dhalashadii qarannimada Soomaaliya sida awgeed waa arrin mudan in la xuso waxa kale oo aan isweydiiyay inay habboon tahay in xilligan aynu xus samayno maadaama ay dalkeena ka jiraan abaaro iyo macaluul daran taa laftigeeda waxaan istusay inay habboon tahay inaynu xus samayno oo aynu isu nimaadno oo aynu wax iska uruurino oo aynu muujino taageerada walaalaheena dhibaataysan iyo dalkeena sida awgeed xafladani ma aha xuska Puntland kaliya waa benefit concert waa xaflad aynu ku taageerayno ama aynu ku muujinayno inaanu taageerayno dhibaatooyinka aanu doonayno inaanu kaalin ka qaadayno dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira sida awgeed waxaanu furnay koonti waanu furnay ciddii caawa waxaan doonaynaa inaynu wax iska ururino aynu dalkeen muujino inaynu walaalaheen la qaybsanayno dhibaatada ka taagan dalkeena qodobka saddexaad oo aan xafladan u qabanay wuxuu ahaa in maadaama jaaliyaddeenu ay ku baahsan tahay dalkan ballaaran ee Germany inaynu marwal is aragno isu nimaadno oo isbaranno haddaba saddexdaa qodob oo muhiimka ah awgii ayaanu xafladan u qabanay waa habeen farxad leh inteenaan aad baan ugu faraxsanahay inteenaasoo qof inaynu isu nimaadno Soomaaliya Puntland waxay u taagan tahay Soomaali weyn waxay u taagan tahay midnimadii iyo inay doonto qarannimadii Soomaaliya insha Allah sanadkiisa waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya oo dhan oo nabada dalkeena oo midoobay inaynu wada dabaaldegno هذا هو mahadsantihiin hadalku ku dheeraan mayo raggii iyo dumarkii igu horeeyay iyo hadalka xukmadiisii qaatay waxaan leeyahay xafladdu way inoo furan tahay caways wanaagsan waxaan mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed ee caawa sida hagar la'aanta ah iyaguna inoo suurta galiyay inaynu halkan dabaaldeg ku samaysano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh la
دمان سومالي قبل كستر جوتو استيد والبوتاي هلو لاتو سومالي أسرع على دمان سومالي أسرع أسرع إلهي أنا قربني وحى حسب ظن عوالي